fadlan intaadan u gudagalin barnaamijka daawashadiisa fadlan subscribe saar like share la wadaag asxaabtaada si ay iyagu dhalinyaradan haatan aan soo duubnay barnaamijkan ihsaan falka ah ay u gaarto ummad aad u fara badan oo iyaguna doonaya in walaalahooda ay caawiyaan wad maasantihiin daawashada muuqaalka waxay kaga mahadcelinaynaa macaamiisheena sharafta leh ee channelka Wama Media nagala socda in aad xilli kasta aad daawataan oo aad la socotaan barnaamijyada xiisaha leh ee aad ka daawataan channelka Wama Media magacaygu waa Maxamed Ibrahim Karaba aan u sii gudagalno daawashada muuqaalka oo dhameystiran meeqa wadooyinka ku dayacan meeqaanan hooy haysanin meeqa u baahan in la caawiyo imisa dhalinyaro fara badan oo iyagu mustaqbal iyo jiilka mustaqbalka ah oo aanan haysanin wax markaasi caawinaad ah waxa ay diris leeyihiin oo ay markaasi yihiin oo ay mar walba saaxiib leeyihiin dhaxanta ma haystaan cunno ma haystaan jiif ku filan waxa ay u baahan yihiin caawinaad qofka kaliyana oo caawinaya waa walaal damqasho leh walaal aaminsan in uu ilaahay ka horeeyo in uu ilaahay daalacanayo ilaahay wax kasta waa uu awoodaa wax kastana waa uu sameyn karaa laakiin dadka la doonayo in lagu imtixaamo waa annaga waxaan maanta u xeedxeedanay haddaan bahwada Wama Media aan nahay in ummadan dhalinyaradan jiilkan dadkan dhibaataysan ee Soomaaliyeed ee aan lahayn dawlad awood badan in dadka Soomaaliyeed aan u dhaxgalno oo aan xaaladooda ogaano dadka Soomaaliyeedna iyaguna ay noqdaan kuwa caawiya oo garab istaaga oo iyaguna markaasi noqda kuwa ku kalsoon alle markaasina ajir raadinaya waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan daawadayaasheena qaaliga ah ee channelka la socda daawada muuqaalka aadka u quruxda badan aadka u qiirada badan ee aanu ka soo duubnay ilmo caruur ah oo aad waalid u tihiin oo aad walaal u tihiin oo aad saaxiib tihiin oo ilmihiina ah oo walaalihiina ah oo rafaadsan oo aanan haysanin waxbarasho oo aanan haysanin hooy in idinka aad daawataan isla markaana ficiladiina iyo iimaankiina intii uu gaarsiisan yahay aad aragtaan oo aad markaasi u soo ihsaan fashaan barnaamijkan waa ihsaan fal magacaygu waa Maxamed Ibrahim Karaba duubaha muuqaalkana waa Ibrahim ku soo dhawaada barnaamijka ihsaan fal walaal haddii aad tahay qof muslim ah oo iimaan leh share garay muuqaalka oo comment ka soo bixi waa tabarta ugu yar ama awoodda ugu yar ee aad wax ugu qaban karto ama haddii aad wax u qaban karto waxaad markaasi la soo xiriiri kartaa bahda Wama Media oo iyagu diyaar u ah inay si toos ah oo live ah oo aad arkaysaan ay u gaarsiiyaan dhalinyaradan masaakiinta ah ee jiilka mustaqbalka ah ee aanan waxba haysanin waad mahadsantihiin kuwa nagu cusub iyo kuwa nagu soo biiri doona aad ayaad u mahadsantihiin hana iloobin in aad subscribe saarto maxaa yeelay waxa inoo tahay dhiirigelin waxaan idin ballan qaadin doonaa cid kasta oo dhibaataysan oo Soomaaliyeed inaan dul tagno isla markaana aan ka soo diyaarino barnaamijyo iyo nolosha dhabta ah ay ku nool yihiin ummadda muslimiinta ah ee tabaalaysan ee aan awoodda haysanin awoodooda ay tahay in ummadda kaliya ee Soomaaliyeed lagu imtixaamo isla markaana ay iscaawiyaan ummadda islaamka waxa lagu tilmaamaa inay yihiin ummad iscaawisa isla markaana hal jasad ah ama hal jir ah ka samaysan haddii ay jirka qayb kamida ay xanuunsato dhammaan jirkoo idil waa uu xanuunsanayaa muslimiinta sida ayaa lagu tilmaamay waana mahadsantihiin walaalayaal wallahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibada qaaliga ee ku xiran channelka Wama Media halkan waa goob markaa lagu magacaabo Somali Star gaar ahaan agaarka Xalwa Baas Hindi dhalinyaradan aad arkaysaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'yar ah oo aanan haysanin waxbarasho hooy iyo sidoo kale u baahan in ay caawin markaa ka helaan walaalahooda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan midmidan wareysan doona magacyadooda xaaladda ay ku sugan yihiin ugu horeyn waxaan ka bilaabayaa cunigan yariiska aad arkaysaan abti magaca asad meeqa sana jirta 12 ma sha Allah asad wax ma bartaa ya maxaa bartaa ina oo diinta ku dadaal diinta ku dadaashid ma sha Allah hooyo ama noolihiin hooyo aaba aaba go shooyay inuu ku
waxaan biya ما شاء الله مالكي قف شقيست ما تهي مش وحبرتها سي عند هذا كواشا كنت دروجا dugsiga ku jira دكسي كجرتا ما شاء الله محادتك عسنسا سومالية كداونيات والله عسنسا دتك سومالية كداونيات دتك سومالية كداونيات محك عسنسا أنا إنا اسكول جرين واحد برام ويا وما سنتهي هذه أنا قلة هذه ترتيب ترتيب وحرمنا هذه مقعة عبد الرحمن ما يختنا جدا سدعتهم عبد الرحمن نلش هذا مالين لها سيدتها حالة هذا وحمبرت عبد الرحمن دكسكم جيران يا دكسكم ما شقي استعمرت يا ما شاء الله عبد الرحمن برامج كان وبرامج إحسان فلاح dad badan oo Soomaalida ku daawanayo waxaan loo baahan yahay si dareen ah in uu hadasho oo aad dadka wax ugu gudbiso marka dadka Soomaaliyeed maxaa ka codsan أنا واحد أمبرتو اسكول إيو دكسي إيو أنا روا waayahay oo waxbarasho hesho waayahay baad tahay oo maasan tahay Abdurrahman akhyaarta kale ugu gudbina ninkan iriska da'da yar magacaada adiga ku bilaaway magacayga waxaa la aadan waxaan barataa maya meeqa sana jirtaa 13 sano 13 sana jirtaa aadan qof shaqaysta ma tahay mise see ku heshaa cuntadaada maalinlaha ah see ku heshaa today bas aan shaqaystaa waxaan cuno bas maxaa ka shaqaysaa marka garaabaan aruursadaa garaab aruursadaa garaabadii marka maalinkii maxaa ka heshaa maalintii 15 kulen ku halaa marka 15 kaas kun see ku kala maraysaa cuntaan ku cunaa 15 taas kun ما شاء الله مركا wax garab ah oo dad Soomaaliyeed ama waalid ah ma ka heshaa may way hooyo aab inta joogan kaamkaan ay digniin ما شاء الله wax ma awoodaan oo inta seextaa marka gurigeena seexdaa seextaa way hay xilligan maxaa inta ka haysaa marka xilligan waa shaqaysan hayaa hadda waa shaqaysanaysaa ما شاء الله maxaa dadka Soomaaliyeed ka codsan lahayd ina iskuul geliyo wax la bar iyo dugsi way hay waa mahadsan tahay aadan asxaabta kale ugu gudbinaa daayirtaan haye magacaada shidaad Umar Ibrahim shidaad meeqa sana jirtaa waxaan jiraa 9 sana jirtaa way hay shidaad waxaan barataa maya way shidaad hooyo aab manoli hooy way dhimtaa banol way hay maalinkii maxaa sameeysaa ma waxa barataa ma shaqaystaa cuntadaada inta ka heshaa inta ku shaqaystaa Somali Star oo waxaad ka shaqaysaa maxaa la haye qaadka miya ma sha Allah maalinkii maxaa heshaa marka 13 kun ka heshaa ma sha Allah marka maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto wax aan barto wax barato waayahay marka maxaa ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa channelka waa media ka daawanaysa maxaa ka codsanaysaa aniga wax aan barto iskuul iyo dugsi leeyahay waayahay waa maasan tahay shidaad asxaabta kale mid iyo labo aan jeclahayn iyagana inaan marka wareysto ninkaasna waxa waaye waa wareysan doonaa daawadayaasha qale ah channelka waa media nagala socda dhalinyartan daada yar aan mid u wareysanayna magacaad awees maqsana jirta 10 sana jirta awees maxaa qabataa garaawa ruuriya way awees wali wax ma barat may maxaa wax baran weyse way munoosha abanol abana waa awoodi waa inuu wax ka bixiyo oo waxbarashadii ka bixiyo waayahay awees marka waxaan ku weydiinayaa maxaa ka shaqaysaa garaawistoonay waayahay garaabisa maxaa ka heshaa maalinkii 34 waayahay intee seexataa marka gurigeena inta ku yaala dalxiis ku yaala hadda waxa weeyaan saacadu 3 ay ku sii shaqaysaa gaar ma raacaysa mise dalxiiska masaafo dheer u dhaxaysa iyo Soomaali Star waa degan inta kaamkan waa degantii ma sha Allah odayga aabo xasmi u leh xamar u jira miyaa
ما شاء الله maxaa ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa channelka Wami Media ka daawanaysa maxaa ka codsanaysaa inay dugsi iskuul geliyo waayahay mustaqbalka maxaa rajeynaysaa inaad noqoto inaa macallin noqdo waayahay noloshaada inay bedelanto oo sidan ay ka bedelanto nolol qurux badan aad ku noolaato wax badan ay u baahan tahay caawinaadna haddaa hesho wax badan noloshaada ka bedelmaya marka ma jeceshahay noloshaada inay saan ka bedelmanto waayahay marka ugu dambeyntii maxaa jeceshahay hadda oo aad ummadda Soomaaliyeed aad ka codsanaysaa inay dugsi iskuul geliyo waayahay waa maasantahay aadan kaga mahadcelinayaa asxaabta kale aan jeclahay mid in aan u wareysto waxaan markaasi jeclahay mid kamid ah daayarta oo aan magaciisa aqoonin inaan wareysto adiga oo isoo fiirinaya كاميرا فيرنا مقعد أحمد ما سنة جرتا أنيا سدحي سنة جرتا ويا أحمد وحمبرتا أنيا وحمبرتا ويا هاي أحمد أنت كورانت أنيا اسمايا كورانت ويا هاي مالنكي أحمد ومحاقبتا والدكادو من نوريهين أحمد أديكو مقعدا dadkana tusaayo intaan ku weydiiyay waalidkay aabay uu dhintay hooyadeyna hadda way joogtaa marka aniin nolol maalmeedkayga maxaa ka helaa garaawada ما شاء الله marka mustaqbalka maxaad rajeynaysaa Axmedow dad badan oo Soomaaliyeed ma ku daawanayaan barnaamij ihsaan falal yiraahdaa waa barnaamij aan hadda bilawnay dad badan oo Soomaaliyeed barnaamijkan u gaaraya daayiratiin mustaqbal badan u baahantiin in la caawiyo u baahantiin iyadoo oo taas marka aan ku duulayno anaga warbixin waxaan ku helnay ina goobtan joogtaan ilma daayirna aatiin saasa idinku iimaanay sababta aan idinku iimaanna waa ina caalamka ama dadka Soomaaliyeed ee iyagu isgarbiya ama wanaaga jecel inaan markaa idin tusno maxaa ka codsanaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ina wax dadkeygina wax u qabto waayahay taada kaleetana dad badan oo waxna kaamirna qaadin lacag ay nuu qaateen al sheegay inuu ka kambinaya markaa waayahay waajiraan laakiin anaga insha Allah ta'ala san jecel lahay dhammaantii waxa wax keela saaxiibkaygu marna afloo wax keela nolol maalmeedkayga ما شاء الله هذه oo ku caawiyo oo saaxiibka علي qanjurufna tartiib marka waayahay aad oo maasan tahay waa ka mahadcelinaya sida quruxda leh ma dhacayso insha Allah in aad ma aragtay mar damba aad markaasi wax xumaan ay ku dhacdo ama aad ma aragtay saa sheegtaba dad badan oo kaamira duub waa jiraan oo dhigmirata ah oo dadka xoolahooda ama masaakiinta xoolahooda si isku daw mariya insha Allah laakiin tan waa ka duwan tahay taas aniga Maxamed Ali laha Kismaayo ku dhashay Kismaayo aad loo yaqaan ahay waxaan jecelahay inaan caalamka idin tuso si wanaagsan insha Allah wixii idin soo baxana aad heshaan telefoon kala qoranayna باذن الله برنامجكana barnaamij qurux badan oo noqonaya ugu dambeyntii maxaad leedahay jiilka dhalinyarada ee adigoo kala ah maxaa ugu baaqaysaa jiilka dhalinyarada ah oo adigoo kala ah maxaa ugu baaqaysaa inay wax barasho helaan ayagana wax barasho helaan waayahay waa maasantiin aad aan kaga mahadcelinayaa dhalinyaradan aadka u daada yar saad arkaysaan aad iyo aad waxaan jeclahay in halkaasi aan ku soo afmeeray barnaamijkii ihsaan fal oo aan markaasi ugu kuurgalaynay xaaladda dhalinyaro aad u daayar u baahan caawinaad badan u baahan in la garab qabto u baahan inay wax barasho helaan inaan ogaano xaaladda dhabta ay ku nool yihiin daawadayaal wareysiga aanu ka qaadnay iyo waliba xaaladooda sida ay tahay waa idin muuqataa hadduu allaha awood leh uu ka raali noqdana barnaamijyadeena xiga waxaan mar walba diiradda ku saari doonaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo u baahan in la garab qabto inaan garab taagnaano haddaan nahno bahda Wama Media waxaan guud ahaan halkaas ku soo afmeerayaa barnaamijka ihsaan fal barnaamijka intuu soconaya waxaa waayahay sidaad daawaneyseenba saaxiibadeena qaliga ah waxaad soo aragteen dhalinyaro aad u daayar oo runtii u baahan in maaragtay caawinaad ay helaan ummadda islaamka waa dad iyagu inta badan is caawiya
waxyaabaha ilaahay ku ammaanay ayay qayb ka tahay ka soo qaad adiga caruur ayaa dhashay haddii hooy la'aan ay yihiin war u doonqan lahayd caruurtaas aad arkaysaanna waa walaalka oo kale qofka waalidka ahna waalid ayuu u yahay marka waxa keliya ayaan ka doonaynaa waxay tahay in ay caruurtan ay iyagu markaasi ay noqdaan dad iyagu meel iska soo saara waxbarta jiilka mustaqbalka ah ee markaa iyagu doonaya in dalka wax u qabtaan ay qayb ka noqdaan saad arkaysaan dhalinyaradan aadka u da'da yar waxay dhalinyaradaas kale ay maaragtay kaga duwan yihiin dhalinyaradaas waa qaar iyagu waalidiintooda magaalada ay joogaan laakiin aysan awood aysan u haysanin in ay wax baraan ama inay maaragtay wax kaabaan maadaama dhaqaalaha iyo aqoontuba ay u saacidi weysay kuwan way ka duwan yihiin kuwaasi waxa ay hooy maaragtay ama daris la yihiin dhaxanta waxay daris la yihiin gaajada waxay daris la yihiin dhibaatada oo waxa ay markaasi ay yihiin kuwa aan meel seexanin aniga ka karaama ahaan waxaan jeclaystay in dhalinyaradaas iyo dad kale oo aad u badan inaan caawiyo aan ku caawiyo wax kasta oo awoodeyda ah waan isdhihi karo waxbay u qaban kartaa barnaamijkan waa barnaamij ixsaan fal ah waa barnaamij insha allahu muddo socon doona ninkan magaciisa ayaa mar kale insha allahu jeclahay wiilkan da'da yarkaa runtii aad arkaysaan xitaa in xitaa uusan kaba xitaa uusan haysanin waa qayb ka mid ah noloshu waxyaabo badan ayay qofka soo marsiisaa xaalado badan ayaa la soo maraa taasina waxa ay maaragtay imtixaan ay ku tahay qof kasta xaalad kastana waa uu kala kulmaa oo xaalad walbana waxa iyadu markaa ay noqotaa mid uu ka gudbo marka barnaamijkeenu waa barnaamij ixsaan fal ah waa barnaamij runtii aan markaa ugu talagalay in walaalahayga i ag fadhiya awood kasta tabar kasta aan leeyahay inaan ku caawiyo waa mahadsantihiin sidaad wanaagsan aad ii aqbasheen inaan idiin imaado oo aan idiin soo booqdo aad idinkaga mahadcelinayaa ugu dambeyntii adiga oo magacaada ku bilaawaya ummadda soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaa axmed aadan aliidhaa ummadda waxaa ka codsanayaa waxbarasho iyo hoy iyo ilmaha walaalihii hadda aa ka soo tagay inay waxbarasho iyo hoy iyo wax ay camalfal ay dalkooda gadaalta mustaqbalka wax ay ugu taraan hallaas ayaa ka codsanaya asalaamu calaykum waayahay waa mahadsan tahay aadan kaa mahadcelinaa adigana maxaad leedahay ana dalkeeda waxaan ka codsanaa inay waxbarasho geeyaan oo waxbarasho aad barato waxaan barto dugsiga iskuul mustaqbalkeeda aan ka fikiro waxaan ku weydiinaya maanta wax ma cuntay maanta hal waqti bisaa waxane maasha allah caawa macashiisan waa mahadsantihiin aniga waxaan jeclahay in wax kastoo awoodeyda ah ay ku caawiyo taleefonkayga nus doolara ku jira ilaahay hadduu raalli kara noqda in wixii idiin goosa aan jeclahay inaan maaragtayo aad ku cashaysaan ka badanna insha allahu aniga ka qaasatan ahaan maxamed ah waa idinku caawinayaa walaalihii aad tihiin taleefon aan kala qoranaynaa ma fahanti waa issoo wacaynaa wax badanna waa isku sheegi doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo waa mahadsantihiin sida quruxda leh ee aad barnaamijka aad qayb igala noqoteenna waa idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkana waa barnaamij maxaa ii tiri caadi igula hadal marka waayahay marka daawadayaashana qaaliga ah cid kasta oo iyadu markaasi damqasho iyo damiirba leh barnaamijkan barnaamij taxan ayuu noqon doonayaa subscribe saara like saara oo weliba reactionkiina ama ficilkiinana ha noqdo mid runtii aad dadkan aadan ajar markaasi ugu raadsanaysaan oo aad noqotaan kuwa ilaahay aayadda qur-aanka uu ku sheegay laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaa naqaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariira oo ilaahay uu kula jeedo micnihii dadka wax bixiya inta badan uma bixiyaan ha lagaa sheego ha lagaa arko ama riyaanaas ama dadka inay istustusaan waxay wax u bixiyaan in aysan qofka wax siinay aysan weji ka rabin wejiga ay ka rabaan ilaahay inay aakhira aga badbaadaan naarta insha allahu cid kasta oo nala soo xiriirtaa oo barnaamijkan qaasatan nala soo xiriirtaa dhallinyaradan aad arkaysaan si toosaan u gaarsiin doonaa si toos ah oo aad arkaysaan aan u gaarsiin doonaa alyadu bilyad waxaana u soo galnay wax kale ma ahan markaan aragnay
markaan fiirinay oo aan u damqanay dhalinyaradan aan hoyga lahayn oo warbixin lagu soo gaarsiiyaan booqday kadibna dadka aniga ila midka ah ee damqashada leh ayaan u soo bandhigay waa mahadsantiin mar kale aad ayaan kaga mahadcelinayaa anigoo maxamed ibraahim karaama ah ayaa barnaamijka idin tabanayay walaalahayga qaaliga ah ee garbaha ee la fadhiyana qayb ay iga lahaayeen walaalo kale oo aan hore u soo arkanana qayb ay barnaamijka ahaayeen saaxiibada qaaliga ah like-ta iyo subscribe-ta iyo share-ta oo asxaabta kale ee khayriga ah la wadaag waana mahadsantihiin